بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabaynaa maanta qaybtii labaad sheekadii shalay oo jacaylka ahayd, bal waxaan u galaynaa maanta qaybtii labaad. Girl, gabadha bilaabayso. You hooligan, ciyaal suuqyahow. You hooligan, ciyaal suuqyahow. Listen to me, ii dhegeyso weel si fiican. Don't mistake me, ha igu qaldamin. Ha igu qaldamin for the bad girls, gabdhaha xunka aniga ha igu qaldamin. I am not me aniga, the candy nooca of that girls, gabdhahaas noocaas oo kale ma ihi. Who stand kaasoo taagan or talk ama la hadla with waxay la hadlaan the boys wiilasha in the street wadada dhexdeeda. Soo ahaatee my prestige sumcadeeda is above, way ka koraysaa talking inaan la hadlo ama la sheekaysto to a foolish boy like you, wiil nacas ah sidoo kale ah. Boy wiilkaasoo bud wuxuu yidhi real sid runta ah, I mistook you, waan kugu soo qaldamay for an urban girl, gabar reer magaal oo kale ah ayaan kugu soo qaldamay, but laakiin you are waxa tahay a rustic girl, gabar reer baadiye ayaa tahay oo reer baadiye ah oo badow ah. An English proverb says, mama English waxay dhahaysaa it is easy, way fududahay to wear in la xirto, way fududahay an urban clothes, dhar reer magaal in la xirto way fududahay, but laakiin it is difficult, way dhib badan tahay ama way adag tahay how sida to be oo lagu noqon lahaa a citizen, reer magaal sida lagu noqon lahaa way dhib badan tahay, laakiin dhar magaal in la qaato waa fududahay. noocaasoo ku tilmaamay. An English proverb says, mama English waxay dhahaysaa it is easy, way sahlan tahay to wear in la xirto an urban clothes, dhar oo reer magaal in la xirto way fududahay, but laakiin it is difficult, way dhib badan tahay ama way adag tahay how to be sidii lagu noqon lahaa a citizen, reer magaal. What a damsel girl you are, waa siiracsi marka wiilka. What a damsel girl you are, alla maxaa tahay gabar dhocil ama alla maxaa tahay gabar dhocil oo kale ah, alla maxaa tahay gabar dhocil ah, waxaa saaran exclamation marka calaamad cajab waa. Gabadhi waan dhiraftay. Girl, gabadhii hadlayso. You spoke to me, waxaad ila hadashay angrily si xanaaq ah, and you have just abused me, haddana waad i caysay, but laakiin never mind, waxba kama qabo. You spoke to me, waad ila hadashay angrily si xanaaq ah, and you have just abused me, waad i caysay, waad i aflagaadaysay, but laakiin never mind, waxba kama qabo. Actually sida runta ah, you went waxaad doonaysaa to court inaad sukaansato the girls, gabdhaha, and liki nasiib daro you don't know mataqaanid weel sifcan uma taqaanid. I think that waxay ila tahay you don't have inaadan haysanin enough experience, khibrad kugu filan ma lihid for the seduction oo ah habka shukaansiga, casharka shukaansiga ma taqaanid adiga. soo ahaatee gedba ku laabo to your mother's house, gurigooda ku laabo, otherwise haddii kalena you will run here, halkan waxaad ka ordi doontaa without shoes, kabal aanad ordaysa halkan.